wasiirka wasaaradda diinta ee waqaafta Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdillaahi Axmed ayaa caawa si rasmi ugu dhawaaqay in tahay habeen ciida. Wasiir Khaliil waxa uu sheegay in bisha Shawaal laga arkay deegaanka ceegaag oo ka tirsan degmada Caynaba. wasiir Khaliil oo warbaahinta kula hadlayay xarunta wasaaradda diinta ee waqaafta Soomaaliland ayaa wuxuu yidhi waxaa nasiib wanaagga oo farxadna ah in sheekha magaalada ceegaag Sheekh Maxamed Caaqil Caawil Xaad Cali oo ay imaamka masaajidka ceegaag uu arkay laba nin oo kala ah Khadar Cabdi Isxaaq iyo Buraale Cabdi Jaamac Geyd oo labaduba ay xaqiijiyeen arkeen bishii laba nin oo musalliina oo loo qaateena imaamkii hortiisa bay ka cadeeyeen imaamkiina saas uu nagu soo gaarsiiyay sida darteedna bishii dalkeena ayaa laga arkay mar hadii la arkayna caawa waxa weyn ciid waxaana kowdii bishii Shawaal weeye sida darteed waxaan leenahay dadweynaha guud ahaanba ku noolaada reen iyo barxad iyo wanaag iyo caafimaad waxaan leenahay ugu horeyn hambaliyada qaaliga ah ugu horeysa waxaan ku hambaleynaynaa madaxweynaha qaranka Soomaaliland Mudane Muuse Bixi Cabdi iyo madaxweynaha qaranka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici iyo dhammaan mudanayaasha kala duwan ee hogaaminta dalkan isku haya ee gacanta ku haya sidoo kale waxaanu hambaliyo u dareena guud ahaan muslimiinta meel joogan gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland ayaan gaarsiinaa hambaliyada ciida waxaan leenahay كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إلهي هنا أقبل أعمال الصن خير كقبته إن كشرني إلهي سبحانه تكون نار تكحر يا الله هنا جيله إلهي سبحانه تكون بشن نجا كو جارسيو رمضان يعيد بجارسيو الله هنا جيله دمان وحنا همبليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومهد حسن حسين مهد جيل شبكة عالمية هروناق نيوس مقالة هرقيسة.